xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay dawladdu dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Saacid ayaa lagu qabtay magaalada Bristol ee dalka UK. xafladaasi oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay dad aad u kala duwan. anigoo marka ugu horeysay magacayga Cabdixakiin Cumar ahna gudoomiyaha jaaliyadda Bristol waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka aan ku bilaabo Cabdullaahi Xuseen Sandow asigoo ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Bristol ku soo dhawaado. Soomaaliya sharafta leh ee ka kala yimid bulshada laamaheeda kala duwan sida odayaasha, culummada, gabdhaha sharafta leh, dhalinyarada, dhammaantiin waan idin salaamayaa. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa haddaan ka gudbo isku sheegi mayno, in badan ayaan isku sheegnay ilaa caawa ilaa wiigaan oo dhan ayaan iska dhaadhicinayna. halkan caawa waxaan nasiib ugu yeelanay oo aanu iskugu nimid inaanu ku soo dhaweyno dowladda wasiirada tirada yar ee 10 ah iyo intaa hadda dowladda noo noqotay. waxaad ogaataa intaa xagga jirta hadday wax qabato intaanu annagu qaban lahayn waa maqanta. haddii dowladda dibadda dadka dibadda jooga ay la shaqeeyaan waa shaqeynaysaa, waana soconaysaa. laakiin marka waxaa loo baahan yahay maanta waxaan noqonay qaran. okay, qaranku marka muxuu u baahan yahay? qaranku wuxuu u baahan yahay qorshe, wuxuu u baahan yahay aqoon, wuxuu u baahan yahay nafta qaaliga in loo huro, wuxuu u baahan yahay qabiil iyo danayste in laga difaaco, wuxuu u baahan yahay bulsho quwad leh oo wax wada qabsata qarankaasna difaacda. war intaan hurdada ka gacno waa ogtiin anagu qaasatan waxaan deganaa Bristol. xilihii ugu dambeeyey oo laga fasaxay dadkii la gumaysan jiro Afrika laga keeni jiray oo qarashkii lacagta lagu keeni jiray ayaa Bristol ku yaala. tii marka dadkii lagu gumaysan jiray ayaanu anagu intaanu tikidda soo goosano lacag ku soo bixinay oo soo taabina halkan anagu raalli ku ah. taariikhan waaweyn iyo waxaananu aan fiirfiirsanaynana anagu waxa uma lihin marqaataan ka nahay dad annaga nalamida ayaa samaystay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhibaatadana haysato waxay noqotay inaan hanan weyno oo dad dalkoodii iyo diintoodii iyo dadkoodii u duubtay inaan noqono ummad iska noqoto reer guuraa xaggaa wax laga sheegaan aadno magaalo hebel baa markaan roone aan tahriib galno. dad maskaxdayadu wax kala weydiiday. dib ha loo noqdo, dalkaagii u noqo, wax ka qabso, wax dagaal baa ka dhacayo, xabad baa ka dhacayso. bal maslaxa xataa weli may dhicin intaa dagaal socday ee 21 sano la isbaabi'inayay. dadka qurbo joogta ah rag inta isxilqaamay ama dumar ama rag bal yiri ummadatan aanu u tagno gar u jeedino waanino bal inay wax naga maqlaan weli ma yindhin. maskaxda Soomaalidana ma gelin. laakiin haddii la socon lahaa la tagi lahaa xun bay isbedeli lahaa. ilaa intaa uma gaarteen sheekada noqon weyde. hadda ilaahay mahadiisa maantay dowlad waa nahay. أول حاجة كمل جار إن كستو قلدي كمل جار كهيسن دد على هي أو تنت صومالي أنت وذي كرام وذا هي ما يعني نسوق جارسيين. صومالي ومت دلكو ومت دينتو ومت وحنا سكودي الدنيا هاي ملا مركا وحاول السكود دراي أو هذيك ما تمحوها هاي موريا سياسات oo ka shaqeeyay ay ahayd waxaan maartay maxaa dalka lagu baabiyay. kiina waxaad moodaa in hadda laga soo
laga soo kabta ayaad moodaa. Marka walaalayaal dadkeena halkan yimid waxaan maartay muxuu ahaa ku dhiirin gelin lahay in dalkii lagu noqdo in maartay muxuu ahaa aan ubadkii geyno. saacid hadda ka hor baa waxaan ku kulannay magaalada Djibouti 1992 asagoo ahayn ra'iisul wasaare markaasna aan rajo ka qabin inuu dowladda ka soo qayb galo. marka waan is wareysanay maalin baan meel ku wada qadaynay waxaan saaciyo maxay kula tahay wadankii dhibaatada iyo sharta haysateen looga bixi karo. marka wuxuu yiri waxaan filayaa in looga bixi karo in dad daacad ah uu dalka hogaamiyo. marka hadda waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa inuu dhageysan doono saacido hadda ballanqaadkii maalintii aad iyo rajadii aad muujisay waxay ila tahay maanta inaad mas'uuliyadeedii hayso daacadnimadii iyo wanaagii iyo sharafkii aad Soomaali u rajaynaysay inay ku guuleysanaysana hadda maanta qofkii hirgelin lahaa inaad u tahay Allah kuu garab galo adiga iyo dad kale oo shaqeynaya wabillahi tawfiiq. أنا وحققت تلف كنا بجرو عبد الحكيم محمود حاجي فقي أهنا وسير كركاشان دكا وحان هذا أن قد تلف كنا بوريجينا عبد الحكيم محمود حاجي فقي كسر دواء سعد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركب ورئيس وحان السلام يا جارية قيمة شرفت بدن بريستول وهي مخلصة سوما مركب حتى وحان بشرف ويلي هنا نديسو بالفيديو سلام قيمة بدن وقتل اللعبة oo aan idinka sido madaxda qaranka ugu sareysa oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo رئيس الوزراء دولة فدرالية الصومالية مدن عبد الفارح شردون ساعد وزمان تبرتي سران إذن صدريان أو إذن كذا أمبريان حفلة قيمة بدن تاغيرا عاد سميسين حكومتي ودوان صوت رئيس الوزراء دولة فدرالية الصومالية مدن ساعد intaad markaan ka gudbo salaantaas aan idinkaga siday madaxda qaranka waxaan idinku hambalyeynayaa idinkuga mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda Bristol iyo dadkii soo qabanqaabiyey xilka weyn iska saaray inay caawa isugu yimaadaan xafladan qiimaha badan ee taageerada dowladda ah isla markaasna igu shartay inaan ka hadlo oo aan la hadlo jaaliyadda Bristol. هذا هو ما markaan gaar ahaan aan idinkaga warramo xukuumadda la soo dhisay ee aada u kooban ee ka kooban 10 wasiir oo aan ka mid ahay runtii waxaa ku jira macno weyn oo aada u fara badan oo ay ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana si xoog leh loogu soo dhaweeyey. waxaa ugu horeeya in marka ugu horeysa laga gudbay wixii 4.5 ahaa ama ay dadka maaragtay inta qaarna la yiraahdo cadaalad darro ku dhacday qaarna la yiraahdo waxaa tihiin maaragtay dad Soomaali oo buuxa oo maaragtay qaarna la yiraahdo dadkaas muskooda tihiin oo taasoo muddo dheer ay waddanka ku soo jiray ay mid cadaalad darro ah waa laga gudbay oo maanta qabaa'ilada Soomaaliyeed ambeelaha Soomaaliyeed waxay u qiibsadeen xukuumaddan si isla eg oo isku mid ah marka arrintaasoo horumar weyn oo la gaaray ay tahay. waxaa kaloo runtii madaxda qaranka ay ku dhiiradeen
in ay tixgelin weyn siiyaan haweenka Soomaaliyeed oo ah lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed oo in muddo aana xuquuqdoodii runtii la tuusiyey ummaddan waxay ku dhiiratay in maaragtay madaxda ay siiyaan 20% oo weliba darajooyinka ugu wanaagsan oo ugu sarreeyana ay siiyaan waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiir arrimaha dibadda ah loo magacaabo qof oo maaragtay haween oo Soomaaliyeed ah wasiiradda adeega bulshada oo ayadana runtii wasaarado fara badan ay maaragtay wasiir ka tahay oo ay hogaaminayso halkaasna waxaa ka muuqata doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin xukuumaddan cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha mudane Cabdi Faarax Shirdoon oo ay maaragtay ka wada shaqeeyeen oo ay madaxda qaranka runtii geesinimadaasi ay muujiyeen way ku ammaan yihiin waana uga mahadnaqaynaa aniga maadaama aan wasiirkii gaashaandhigga aan ahay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska iyo gabdho Soomaaliyeed oo ayagana ku dhaqan waddanka Sweden oo aad isu maaragtay u dadaalay oo isu xilqaamay oo taageero iyo hooba u soo diray ciidamada qaranka sida Soomaaliyeed ee howlgallada ka wada dalka gudihiisa ee dib u xoreynta ka wada ee la dagaalamaya cadowga maaragtay ummadda Soomaaliyeed muddada dheer dhibaatada ku hayay runtii ciidankaas waxay idin soo dirayaan salaan iyo mahadnaq aad u ballaaran taageeradii dhaqaalaha ahaa ee aad soo gaarsiiseen jaaliyadda gabdhaha gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska iyo Sweden waxaan aad ugu dadaali doonaa inaan isku xirno dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan oo aan aad u tixgelino rabitaankooda oo aan aad u tixgelin doono rabitaankooda iyo talooyinkooda waxtaba sidaas darteedna waxaan idinka codsanaynaa inaad ka qayb qaadataan xukuumadda Putin sidii aad ugu soo gaarsiin lahaydeen talooyinkiina wax ku oolka ah iyo ra'yigiina intaba annagoo runtii aan ku shaqayn doono rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed sida uu sheegay madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar iyo waxaan idinku sugaynaa waa inaad waddankiina kusoo noqotaan isagoo nabad ah oo barwaaqaysan oo aanu idinku soo dhaweyno waxaan rajaynaynaa xiriirka dowladda iyo jaaliyadaha gaar ahaan Bristol caawa oo aan maaragtay taageeradaas weyn ay noo sameeyeen inuu noqdo mid joogto ah oo annagana aan aad u soo dhaweynayno macnaha xiriirkaas iyo maaragtay iyo wada shaqayntooda intaba salaana naga gaarsiiya inta aan fursad inay ka soo qayb galaan xafladaasi waa mahadsantihiin Maxamed Xaraare, Somali National TV, Bristol.